hindisahiyadka maaragtay kalluumaysiga iyo horumarinta maareynta kalluumaysiga yaan gali doonaa guddigan u yeeri doonaa waxaan rabaa xildhibaano sharafta leh inaad idinka codsado waan ognahay maalmo yaraa noo harsan aqalka sarena sideen oo kale asigana maaragtay waqtigiis wax yara ka harsan hindisharciyaadka maanta noo yaali wuxuu ka mid yahay hindisharciyaadadii deen cafinta ku xirnaa baarlamaankan xirmihiis waxaa ka harsan ilaa 45 maalmood dastuuriyan haddaan anagu ku darsano ajenda muhiima markuu yaalo waa ku darsan karnaa laakiin sidii dastuurka noo tilmaamahayo 4 ku eg yahay waqtigiisa aqalka sarena waxaa laga yaabaa saas oo kale inay noqoto marka hindisharciyaadkan waxaan rabnaa inuu naga gudbo kalfadhigaan intuu socdo oo naga xirmiinaan rabnaa sidaa daraaddeed xildhibaanada sharafta leh waxaan rabaa maanta maalmihii dulqaadka badan xildhibaanada samayn jireen oo hal maalin oo 2 fadhi aan galala inay noqoto yaa idinka codsanayaa guddigaan fasaxaynaa marka guddiga doodiis dhammaysto dooda dhammaado fasaxeeraan qaadanaynaa waa isku soo noqonaynaa waxaan rabaa arrintan inay naga gudbo maadaama hindisharciyaadadii muhiimka ah oo dalka u dabrnaa ka mid yahay hindisharciyadan dulqaadkii iyo sharaftii weligeeda baarlamaan ma samaynin intaan aniga ka warqabo hal kal fadhi 12 hindisharciyaad la ansixiyey ma jirto oo kan ahayn kankii 12aad buu noqonayaa xildhibaanada sharafta leh rakoor cusub yaan dalka u dhignay shacabkeena iyo dalkeena waa xoreynay marka haddana maanta dulqaadkaad inaad samaysaan anagoo nidaamkana waafajinayno 2 fadhi inaan ka dhigano si aqalka sare ugu xirmin oo aan u gudbino walaalaheen aynan ku gaarsiino taasna waa idinka codsanay xildhibaanada sharafta leh marka arrintaas haddaad ila qaadataan waxaan samaynaynaa guddigaan u yeeraynaa dood yaa noo furmaysa aadaad u mahadsantihiin xildhibaanada sharafta leh